السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaada dhamaantiin meel walba joogtiin haddii tahay markii ugu horeysay aad soo booqato barteena Somali Online Opportunities fadlan waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe raad halkan sidoo kale waxaad kusoo biiri kartaa barteena Telegramka Somali Online Opportunities linkigan waxaan ku dhigi doonaa qaybta hoose commentiga ugu horeeya ayaan kugu biin gareyn doonaa dualeedmo halkaas ayaad kaga soo biiri kartaa barteena Telegramka waxyar ka hor waxaan duubnay muuqaal oo falanqaynta aan kaga hadlaynay laakiin ciladiis waxay ahayd codka ayaa problem yar ka jiray soo wixii dhanka kacay noqdeen laakiin insha Allah hadda ayaan waqti u helay oo idin soo gelinayo dualeedmo sidoo kale waxaa jira maanta maalin oo talaado waaye laakiin insha Allah dib waxaan soo gelin doonaa forecastingka falanqaynta isniinta mise axadda habeenkeeda oo isniin soo gelaysa mise subaxa isniinta oo kale ayay u badan tahay labadaas inaan soo gelino sidoo kale haddaad usii baahantihiin maalinka khamiista oo kale inaan hayadana soo gelino maadaama uu suuq mar walba u baahan yahay refreshment iyo maxaa la yiraahdaa meelo badan inaad wax ka fiirisid insha Allah isniintana waa ku dareynaa hadduu khamiistana waa ku dareynaa hadduu alla idmo haddaba mar walba setup-keena dhisayna waxaanu ka bilownaa DXY oo ah indexka lacaga doolarka ee la xiriira maadaama waa asagaan falaqayno waxayna fududaanaysaa wax walba doolarka la xiriira iyo xaaladeeda inaan halkaas ka yara faano intii aan mid u aadi lahayn inaan DXY aan si guud ugu yara faano haddaba DXY waxaa ujeedaa inuu warkeedii iyo warkeedu waa intaasoo dhan is leeyihiin ilaa kor xitaa abtareen oo korkii ugu hoosay ka yahay hoosteeda inta yahay korkeediina inta yahay hoosteediina inta yahay haddaba marba haddaa laba higher high iyo laba higher low heshid kaaga filan jihada inaad xaqiijisid waxaa samayn kartaa waxyaabihii kala raadin kartaa shuruudihii kale oo maxaa ka mid ah waxa la yiraahdo liquidity oo ah in meel laba jeer iyo wax ka badan la taabtay maxaa la yiraahdaa uu samaysto suuqu kadibna waxaa ujeedaa in halkan uu ka samaysmatay kadibna supply-gaada waa kan afka ayaa loo soo saaray si fiican ma loo imaanin intaas markay dhacday waxaad xaqiijinaysaa move-kan maxaa la yiraahdaa trendiga soo socday wuxuu yahay wana waxaa ujeedaa lower low inuu haysto lower high kale haysto lower high meelahan kale uu ka bixin karaa kanoo kale xitaa lower high waa yahay kan lower low kale waa sii noqon karaa markaasi uu sii fiirisid kana lower low kale waa sii noqon karaa halkaana hoos kale ayay noqon kartaa halkaana hoos kale ayay noqon kartaa sorry halkaana kor kale ayay noqon kartaa hoostii u heshiisan halkaana ayay noqon kartaa suuqu si walba ayaa macquul ka noqon kara halkaana supply bay ku noqon kartaa ka soo qaad kadibna halkaan ayuu suuqu tagi karayaa meeshaan kadibna toos ayuu waxaa la yiraahdaa supply-gaada usoo buuxin karaa oo halkaan imaan karaa kadibna uu wuxuu la yiraahdo uu bilaabayaa suuqaada waxaa la yiraahdaa move weynaa oo trendiga ahaa ee kor u socday markiisii horeba saas ayuu oo halkaana la jebin karaa kana la jebinayaa kadibna toos ayuu aadi karaa bilcagsigeedana waa dhici kartaa oo inuu korkaas aadinba kan halkaan kasoo bilowday oo direct halkaan oo kadib waa isagna waxa sugaysaa inta meelaan uu istaago oo la soo noqdo saan meelaan uu istaago oo soo noqdo oo meelahan liquidity wax kaasiyo aad ka sii raacdo isagana already jiha soo socotay ay ahayd oo listiga way kugu jirtay problem kugu noqonayso seel ayaadna u sii garaaci doontaa haddaba inta markay dhacdo annaga laakiin muhiimadeena koowaad waa inuu suuqu baay ahaada sababtoo waxa hadda ka muuqda ayaa baay ah technical iyo fundamentalba so USD marka videoga hore markaa aan soo duubaya waxaan ku sharxay waliba trade ayaa markaas aan galnay oo halkaan ka galnay laakiin intriga ayuu ku socdaa laakiin hadda waxaa ujeedaa weli inaad kasoo gaari kartaan hadduu muuqaalkan waqti uu idin soo gaaro si dhaqso leh badankiis ayadana waxaa ujeedaa inuu sell tahay USD oo jihadeedu ay sell tahay laakiinse wanawarka uu yahay waxa la yiraahdo uptrend oo kor hoos kor oo yahay laakiin halka waxaa uga jeedaa markaad
aad timaadid 30 daqiiqo iyo 45ka liquidity halkan inaad ka heshay ujeedaa supply kugu jirto halkan madax lagala baxay laakiin Binguru oo soo noqday soo hadaad maxaa la yiraahdaa 45ka iyo 1 hour ka tagtid waxa ujeedaa inuu waxa la yiraahdo ishaag oo candleka seelka ah markuu uu xirmay oo kan kale oo seelka furmay halkaas oo trade ka galnay anagoo target gareynayna halkan oo ah meel ilaa iyo 56 bps ay ku jirto 20 bp 90 bp meelaasna anagoo risk gareynay haddaba asaga hadaa kasoo gaartiin oo halkan entry wili marmarayo waa ka faa'iideysan kartiin waa geli kartiin hadduu laakiin ku dhaafay sidaas ayaa lagu haraysaa haddaba haddaynu kusii soconno lacagaha aan falanqeynayno USDGB waa ka mid ah inkastoo tradekan oo waqti hore dhacay laakiinse hay'ad laftirkeeda mararka qaar tradeku markuu dhaco waxaa qasab kuga inaad ka yara barato cilmi saakadii hore ayaan halkan entry keenay waxa ujeedaa halkan inay tahay liquidity bottom ay ku jirto inuu halkan ku jiro ayaad ujeedaa oo xariiqda halista ahayd jihaduna ay inoo ahayd 4 hour higher high kadibna in lasoo jabiyey ayaad ujeedaa dhimaankeeni la yimid kadibna movekan ayaa kor u kacay oo jabiyey korkii kasii horeeyay oo halkan ahayd kadibna marka halkan ugu soo noqday halkan markii ugu soo noqday candleka seelka uu istaagay uu baygan bilowday baygan uu xirmay ayaad waxaa xirinaysaa ayaa waxaa furinaysaa trade-kaada soo hadda waxaa ujeedaa inuu nasiiyey waxaa la yiraahdaa 68 bp second waxaan ku sugaynaa boqolkiina halkan meelaha noogu xiro kadibna all the way abkaas ayaanu ka sugaynaa oo ah 150 bp camal hadduu alayn sidoo kale AUDUSD iyaduna waxay ahayd trade kale oo aynu galnay inkastoo laakiin trade-kaas shalay ayuu ahaa shalay barqadii ayaan halkaa ka galnay isniintii markay ahayd 4 saac camal halkan ayuu xalay wuxuu nasiiyey ilaa 70 bp meelahaas waan rajeynayaa laakiinse waa kan ilaa meelaha 78 bp camal nasiiyey laakiin targetkeena ugu weyn waa inuu meeshaan kore uu taga oo 130kaas bp camal waa inaan ka helnaa laakiin already half waa ka haysanaa kasteeni trade-kuna meelahan ayuu stop loss-kiisu yaalaa waa sugaynaa insha allah isagana intuu korkaas inooga tagi doono sidoo kale waxaynu fiirinaynaa waxa la yiraahdo lacag indexka lacagta British pound-ka ingiriiska hay'adana waxa ujeedaa inay seel tahay laakiinse weli seelkii riskiga ay tahay oo korkii ugu koreeyay ay tagtay laakiin waa la tacaalaynaa si walba ay noqoto waxaynu sugaynaa in halkan hoose uu trade-kan soo jebiyo oo halkan uu imaado kadibna mid kale saas uu samaysto kadibna hoostaasi aan la sii trade gareyno mise waxaan sugaynaa inuu korkan aado saan uu jebiyo halkan hoose kor la jebiyo kadibna meelahan saan ugu soo noqdo kadibna aan move kala sii raacno saasna waa midda aan ka sugayno maadaama uu trade-ku uu soo wili kala cadaan waxaa waaye inta dhaqaaqan movekan uu dhacayo ayaan sugaynaa insha allah haddaba haddii aynu sidoo kale kusii socono forecastigeena JBP card ayaa ka mid ah cagaalistiga noogu jira ayadana waxaa ujeedaa inay waxaa la yiraahdo ay uptrend tahay oo halkan waxaa ujeedaa korkaan uu yahay hoos ay tahay kor ay tahay hoos ay tahay kor ay tahay haddaba halkan waa meel imbalance oo qasab ay tahay suuqu inuu yimaado halkaanna waa meel sidoo kale xamaasadeeda wata oo supply-gan halkan ku jira ayaa la ixtiraamay oo waa laga kacay waa ujeedaa haddaba markay taasi dhacday waxaa fiirinaysaa suuq liquidity waxaynu lahaa inkastoo liquidity weyn uusan ahayn laakiin halkan ayaa ku jiraa waxaa la yiraahdo liquidity oo bottom ah bottom waa liquidity hoosaa lagala jeedaa oo ah halkan ayuu ku jiraa sidoo kale halkan marka la yimid waxaa ujeedaa in korkaan hoose la jebiyey korkaan hoose in la jebiyey soo halkan xitaa hadda trader ayaa macquulka ah markuu suuqan soo noqdo halkan uu yimaado halkan trader ayaa ku jira
halkaas ayaad ka geli kartaa 21 bib adoo socda 105 bib waa trade ayrin kartid sababtoo ah meeshan ku dhiti weyn in noqoto hadhootid rabna isku bedesho trade-kana meelahan markuu tago in si fiican loo soo daadiyo oo suuqu u toos halkan u yimaado kadibna oo all the way up aado ayaynu ka sugaynaa sida ugu macquulsan laakiin ma sugna suuqa intuu sida u socdaaya mar walba loo macaamilnaa soo halkaan hadda trade yar ayaa ku jira JBP card listiga ku darso ishana si fiican waa insha Allah sidoo kale JBP AUD hay'adana JBP AUD halkaan ayaan wax yar ka hor trade ka galnay trade-kan xitaa waxaa markaa video forecasting ka diyaarinayna ayuu intriga joogay video hore oo halaabay hadduu halaabi lahayn insha Allah waxaan rajayn lahaa inuu soo gaari lahaa qaarkiin ka faa'iideysan lahaa intii noogu horeyso aleesha laakiin maysan noqonin JBP AUD ayadan halkaan markay tagto ayaan qiimeyn doonaa oo fursadda saleelka tooska aan rajayn doonaa inuu bilowdo sidoo kale JPY ayadan waxaa ujeednaa inuu horta fursadeedu sell yahay trendigeedu halkaan ay tahay trendi meel laga geli la imaan karo meel laga soo daadan karo oo suuq waxaa ujeedaa supply-gaadi wuu yimid kadibna haddana wuu reject gareeyey si toosana ma u tegin soo already trade-kan waa ku jiray laakiin adinka adeertaan meesha ugu macquulsan uu yimid waa halkaan soo waa halkan ayadana markuu yimaado waa meel fursadda aad ka geli kartid adoo riska gareynayo 32 bib una socda waxaa la yiraahdaa 130kaas bib 128 ilaa 130ka bib iska dheh adoo rajeynayo insha Allah ana ayadana sidaas uga faa'iideysan doontiin ayaan rajayn doonaa sidoo kale indexka euroga isagana haddaa fiiris waxaa ujeedaa inuu asagana all the way sell yahay oo liquidity halkan uu kugu dhameystiran yahay maxaa la yiraahdaa supply-gaadina la tegay kadibna waxoogaa laga soo daatay asagana waxaan sugaynaa insha Allah in uu pullback sameeyo oo kadib sidaan uu inoogu socdo halkan tago kadibna kandarka ugu horeysa eelkaa uu dhaco kadib kan labaad ayaanu asagana qiimeyn doonaa hadduu haleynmo lacagaha uga faa'iideysan kartidna waxaa ka mid ah Euro AUD waxay sameynaysaa ujeedaa bilcagsigii indexka oo indexkana meeshaa seelka ka sugaysay ayadana markaas waxay isku beegi doontaa insha Allah meeshaan oo halkan maxaa la yiraahdaa supply-gana ayay tegi doontaa insha Allah kandalkan u koreeya korkiisa inay tagto soo meelahan ayaa rajayn doonaa insha Allah inay imaato kadibna intriga iyo sharciyadiisa ayaan ku qaadan doonaa ayadana hadduu haleeymo insha Allah intaas ayaan rabaa inaan ka daba gaarsiiyo oo forecastina insha Allah haddii trade-yadu intooda badan gadaal iska bedelaan maalinka khamiista oo kale waxaan isku dayi doonaa inaan ayadana muuqaal forecastin idiin soo geliyo insha Allah sidoo kale waxaa kusoo biirtaa barteena telegramka oo wixii degdega iyo wixii sidaaba aan halkaas kusoo dirno insha Allah haddii aad u baahan tihiin forecastinga sidaan oo kale oo aad u aragtiin inay caawinayso fadlan commentiga inoogu reeb intaan muuqaal sidaan oo kale ku kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu